qarax ayaa waxa uu ka dhacay degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. waxaan rabaa qaraxa inaan la wadaago nooca uu hay sidoo kale qasaaraha dadka ka ag dhawaa halkaasi ee soo gaaray soo dhawaada daawadayaal. qaraxan waxa uu ka dhacay si qaas xaafadda lagu magacaabo xaafadda Xoosh, waxaana ahaa qarax miino oo la saaray suuli ama masquul sida u taqaanaan. daaqadeeda ayaa la saaray kadibna qaraxa sidaasi ayuu ku qarxay. ila wareedyo halkaas ka ag dhawaa waxay noo sheegeen inuu goobta ka ag dhawaa askari iyo sidoo kale ciidan kale oo goobta ka ag dhawaa. qasaaraha qaraxa waxay noola xaqiijiyeen in laba qofood oo dhaawac ah midna uu yahay askarigii goobta ku sugnaa oo lala damacsanaa in qaraxani uu haleelo isla markaana uu nafti ku waayo. sidoo kale qof shacab ah oo eriyada ama guriga daaqada suulida ahaa ka ag dhawaa ayaa sidaas oo kale ku dhaawacmay. labadii dhaawacyada ahayd waxaa loola soo caray mid kamid isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho oo halkaasi lagu dabiibay xaaladooda caafimaad. qof waxa waa qof shacab ah oo goobta iska marayay, halka mid kamidna askarta ciidanka dawladda uu kamid ahaa si qaas ah kuwa ka howlgala degmada Kaxda halkaasina ku sugnaa. qaraxan ayaase wuxuu ahaa qaraxyadii runtii ee dadku aad u la yaabaan ee qaybaha suulida daaqadeeda banaanka la saaro kadibna la damacsanaa intii guriga ku jirtay ama qof masquush ku jiraba in uu ku qaraxo kadibna sidaasi uu ku baaba'o. laakiin alla ma uusan sababin qaraxani wax dhimasho kamaysan dhicin oo laba dhaawac bis ayaa qaraxan ka soo gaartay. waxaana labada dhaawac kaliya askari ciidanka dawladda ka tirsan iyo qof shacab ah. sidoo kale waxaa burburtay goobtii qarax uu ka dhacay masquusha iyo sidoo kale eriyada gurigii ka ag dhawaa gebi ahaanba dhulka ayay la simmeen. waxaana tilmaamay qarax inuu yahay qarax miino oo halkaasi la saaray. durba waxaa goobta isku soo fidiyay ciidan ka tirsan dawladda halkaasina baaritaano ka sameynayay. dadka shacabka ee goobta ku sugnaa ayaa banaanka hore loo saaray iyadoo laga cabsi qabo in qaraxyo kale ay sidaasi oo kale uga dhacaan ama miinooyin kale guriga qarax ka dhacay iyo sidoo kale goobaha ka ag dhowba oo qarax sidaasi oo kale uu ka dhaco. waxaana hadda laamaha ammaanka meesha joognay sidoo kale ciidan kale oo ka tirsan dawladda Soomaaliya waxay wadaan baaritaano ay ku baarayaan shakhsiyaadkii ka dambeeyay qaraxan masqusha la saaray ee lagula beegsanayay reerka guriga deganaa. dad goobjoogayaal ah waxay noo xaqiijiyeen in qarax jugtiisii uu ahaa mid aad u xoog badan, laakiin dhawaqa qaraxa iyo sidoo kale waxyeeladii uu geystaba ay ahayd mid aad u yar, mana jirin mid aad u yar. sidoo kale laamaha ammaanka ee degmada Kaxda ayaa goobta soo gaareen, ilaa haddana weli kama hadleen wax faahfaahinana maysan bixin iyo sidoo kale dawladda Soomaaliya intaba. Muqdisho maalmihii ugu dambeeyay waxaa aad ugu yaraa inay ka dhacaan qaraxyada sidan oo kale ah ama lala beegsado ciidan ka tirsan dawladda Soomaaliya, kuwaasi oo muddooyinka ugu dambeeyay aad u yaraa isla markaana tan iyo markii Muqdisho laga bilaabo kaamirada qarsoon ee aad u yaraadeen qaraxyadii waaweyn ee ka dhici jiray guud ahaan gobolka Banaadir. waxaana hadda Kaxda ee mar kale ku soo noqonaysa degmooyinka runtii muddooyinka ugu dambeeyay nabadda ahaa oo aysan ka dhicin wax qaraxa, laakiin maanta uu qaraxan ka dhacay. wixii ku soo kordho wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaan iskugu soo gudbin doonaa saaxiibayaal.